Sanadihii dambe oo si xawli ah ku socotay adeegsiga tiknoolajiyadda ay dadku waxay u janjeeraan adeegyo u fududeynaya nolol maalmeedkooda. Waxaana adeegyadaas muhiimka ah ka mid ah qaababka lagu qaato lacagta noocyadeeda kala duwan, maadaama uusan qofku meel walba lacag ku qaadan karin. Sidaas darteed, dhammaanteen waa inaanu sameynaa qaabab fudud ee aan ku qaadan karno lacagteena oo dunida meel walba kala bixi karno. Waa in aan iska diiwaangelinaa shirkadaha bixiya adeegan. Waxaa hubaal ah kaarkan inuu faa'iidooyin badan siin doono dadka haysta. Muuqaalkan ayaan ku soo bandhigaynaa waxa uu yahay kaarkan, asalkiisii hore, maxay adeegsan jireen dadka. Intaynan bilaabin muuqaalkan, haddii ay tahay markii kugu horreysay aad soo boqoto kanaalkan, fadlan ugu soo biir siina gaarsii asxaabtaada. Waxaana sidoo kale ka codsanaynaa inaad nagula saliso xabiibkeena Muxamed sallallahu calayhi wasallam. Ku soo dhawaada muuqaalkana maanta. Asalkii hore, dadku waxay adeegsan jireen bangiyo ay ku kaydsadaan lacagahooda. Markay u baahdaanna waa ay kala bixi jireen oo gacantooda ama boorso ayay ku qaadan jireen. Sidoo kale, markii ay safar gelayaan ama aysan haysan meel ay kala baxaan lacagtooda, waxaa laga yaabaa bangiga lacagta ugu jirto inuusan xarun ku lahayn meesha aad u safartay. Tiknoolajiyadda oo hormartay awgeed, waxaa soo ifbaxay habab dadka lacagtooda ula bixi karaan meel walba oo dunida ay ka joogaan. Waa maxay kaarkan? Waxaa loo yaqaan kaarka caalamiga ah ee lacag kala bixidda. Kaarkan waxaa ka mid ah laba nooc oo ah kuwa ugu caansan ee loo yaqaano Mastercard iyo Visa. Noocyadan magacyadooda waxa ay ku salaysan yihiin la shaqaynta hay'adaha maaliyadeed iyo bangiyada. Kaarka iyo sidoo kale ganacsatada ayuu aqbalaad la yeeshaa macaamilka kaarkaas wata. Waxaa jira in ka badan 28 milyan oo goobood oo aqbala wax ka qabashada iyo bixinta kaarkan. Waxaana xusid mudan in shabakadda Mastercard aysan bixin kaarkan, isla markaana aysan ku soo rogin wax lacag ah. Sanad kasta dadka haysta kaarkan uma baahna ganacsatadu inay aqbalaan kaararkooda, laakiin waxa ay soo celisaa oo ay dejisaa siyaasad gaar ah oo la xiriira lacag bixintan. Shabakadda Mastercard waa shabakadda labaad ee lacag bixinta ugu weyn ee caalamka marka laga reebo shabakadda Visa oo ah midda ugu weyn ee la adeegsado, maadaama ay adeegsato shabakadeeda lacag bixineed caalami ah si ay u fududeyso wax isdhaafsiga lacag bixinta. Shabakaddan waxa ay ka kooban tahay dhowr qaybood oo ay ka mid yihiin dadka haysta koontadooda Mastercard, baayac mushtarka, iyo hay'adaha maaliyadeed ee bixiya kaarkan. Kaararka lacag bixinta waxa ay noqon karaan kaararka prepaid-ka ama kuwa kaydka. Noocyada kaarka ah ee Mastercard waxaa jira noocyo gaar ah ee Mastercard, kuwaas oo mid walba uu leeyahay faa'iidooyin badan sida soo socota. Heerka Mastercard ama Standard Mastercard waxa uu leeyahay astaamo badan ay ugu muhiimsan yihiin waqti kasta, luqad kasta, iyo meel kasta. Waxaa sidoo kale iska qori kartaa adeegga ka hortaga tuugada ee kormeera akoonnada haddii ay dhacdo isbeddel muujinaya qiyaamo. World Mastercard waxaa ka mid ah sifooyinka lagu sheego kaarka caadiga ah marka lagu daro dalabyo iyo qiimo dhimis badan oo ku saabsan adeegyada safarka uu qofka gelayo iyo kuwo kale. Elite Mastercard kaarkan ayaa loo arkaa in uu yahay nooca ugu wanaagsan ee Mastercard, maadaama uu ka helo dhammaan faa'iidooyinka lagu sheegay kaararkii hore marka lagu daro faa'iidooyinka kale sida helitaanka adeegyada muhiimka ku ah ee ku qabanaya howlo badan sida wax ka iibsiga dunida iyo qaarar kale oo badan. Farqiga u dhexeeya Mastercard iyo Visa. Waxaa jira xoogaa farqi ah oo u dhexeeya Mastercard iyo Visa, maadaama Visa uu yahay adeeg ka ballaaran kan Mastercard marka loo eego wax kala iibsiga. Maadaama Visa ay gaartay dakhli saafi ah sanadkii 2020 oo gaaraya 21.8 bilyan oo dollar, kuwaasi oo intooda badan ay ka heleen khidmadaha adeegga iyo habeynta xogta, sida khidmadaha lagu soo rogo hay'adaha bixisa kaararka, taas oo iyaduna ka soo ceshata khidmadaha qof kasta oo loo adeego. Qarashyadani badanaa waa kuwo u go'an oo aad u yar. Mastercard dakhliga saafiga ah ee 2020 wuxuu asigana gaaray 15.3 bilyan. Intooda badan dakhliyadaasi waxa ay ka yimaadeen khidmadaha adeegga iyo habeynta xogta. Waxaa xusid mudan in Mastercard ay leedahay hal qayb oo ganacsi ah oo la yiraahdo Payment Solution. Bixinta Mastercard marka lagu daro faa'iidooyinka heer sare ah ee sidii hore loo sheegay, bangiyadu waxay bedeli karaan shuruudaha waxayna bixiyaan barnaamijyo faa'iido gaar ah u leh bulshada. Ugu dambeyntii, labadan shirkadood waxa ay leeyihiin saameyn yar oo faa'iido ah sababtoo ah waa keliya qalab digital ah oo u bixiya nidaamka lacag bixinta. Sidaa darteed, ma go'aamin karto xaddiga dulsaarka ee ka imaanaya adeegyada, maadaama arrimaha ay go'aamiyaan bangiyada bixiya kaarkan. Maadaama oo ay si xawli ah ku socoto dunida,
ayaa dadku waxay u sii sahlanaanaya adeeg u fududaanaya nolol maalmeedkooda. waxaana adeegyadaasi muhiimka ah ka mid ah kaarka lacag ku qaadashada iyo noocyadiisa kala duwan, maadaama uusan qofku meel walba lacag ku qaadan karin. sidaas darteed dhammaan waa inaynu samaysannaa oo in iska diiwaangelinaa adeegyadan oo bixiya qaar ka mid ah bangiyada ku yaala dalkeena Soomaaliya, si ay kugu sahlanaato in aad dunida la macaamisho ama aad wax ka iibsato adiga gurigaaga ama goobtaada ka bixin. muuqaalkeena maanta halkaas ayuu ku soo koobaynaa. haddii uu ku cajabiyo fadlan la wadaag asxaabtaada. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.